kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa Bayern Munich oo haysto qarsoodi ah oo ay Xavi Alonso uga dulqaadi karto Liverpool, Conte oo ku sii jeeda horyaalka Premier League, De Bruyne oo ka tagaya Man City iyo wararka suuqa ee maanta iyo wararka kale soo baxay eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysan soo baqatay fadlan rukumo kambalelkana furo saad uga mid noqo dadka ugu horeeya ee warbixintii ay soo gaadho mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii ku bilowno runtii kooxda Bayer Leverkusen iyo waliba tobrada Xavi Alonso runtii kulankii xalay taariikh weyn ay dhigeen taariikh runtii lama ilaawaan ay dhigeen oo runtii ay ka jabiyeen kooxda Bayern Munich oo hore haysatay waxay jabiyeen record ay Bayern Munich ay runtii ay haysatay waxayna ay 3 kulan aan laga badin dhammaan tartamada oo dhan halkaas oo ay hore haysatay kooxda Bayern Munich oo 32 kulan aan tartamada dhan hore looga badin sidaasna kulankii xalay ay runtii ay ciyaareysay ay saas ugu jabisay kooxdaasi Xavi Alonso iyo kooxdiisa waliba Bayer Leverkusen sanadkan waa laga yaaban yahay suuqi dhawaa in yar oo isku jabsaday oo safkiisa ku soo darsaday runtii waxaana kooxdan aad ugu cadreynaya xidiga khadka dhexe ee Xhaka runtii Xavi Alonso waa laga yaaban yahay muddadaasi kooban ee kooxdan haysto sumcad ay ku samaystay xaqiiqana waxa ah inuu ka mid yahay tobrayaasha lagu raadinta badan yahay oo kooxoyin fara badan ay isku haystaan oo runtii sanadkan way u badan tahay in kooxda Bayer Leverkusen horyaalka ay qaadi karto balan eegno dhibcaalka la kala mariyo 36 kulan ay ciyaartay kooxda Bayer Leverkusen tartanka horyaalka Bundesliga 16 dhibcood ay leedahay Bayer oo ay kooxda sanadihii ugu dambeeyay iska daldalanaysay horyaalkani waxay leedahay xaqiiqatan 50 dhibcood bileed inkastoo kulan uu baaqi u yahay 11 dhibcood ayaa runtii laga hayaa xaqiiqatan way badan tahay wax yarna way hadheen runtii 36 kulan ayaa la ciyaaray in kooban way hadheen way u badan tahay haddii aan mucjise ka aan dhicin in sanadkan muddada dheeraad iska soo daldalan jirtay la soo gabagabayn doono oo Bayer Leverkusen ay meel ka soo kici doonto sanadkan kooxdani Bayer warsanadii ugu dambeeyay iska daldalanaysay in kulan waa baaqi oo jeebka ay ugu jira kooxda 12 dhibcoodna waa laga hayaa kulankaasi haddii lagu darana oo matina waa badiyeen 3 dhibcood ugu dar waxa saas laga hayn doono 8 dhibcood wayna ognay karbaash ku dhacay kulankii dhawaa ay u geysteen runtii xalina kulankii ay badiyeen waxa uga dhigan yahay in record kale ay ka jabiyeen sanadkan ay ka qaadiyaan tartanka horyaalka Bundesliga xaqiiqatan kulankii xalay ciyaareen waxa aad lagu soo runtii warinayay falkii kulankaasi ka dhacay dabaaldegii goolkii koobaad u dhaliyay Xhaka ee runtii dabaaldegii dhaawac ahaa waxa la arkay tobaraha kooxda Bayer Leverkusen Xavi Alonso oo celinaya caafimaadka kooxdaasi Bayer Leverkusen oo mooday in laacibkan uu goolkii uu ku dhaawacmay waxa la arkay tobaraha oo celinaya kamarada ay soo qabanayeen oo wargeysidu ay soo dhex mareen warkaasi Bayer Leverkusen waa lagu cadreysay Xavi Alonso waa tobaraha lagu raadinta badan yahay hadda waxa leeyahay Bayern uu sanadkan uu ku wacdareynayo Xavi ayaa kamid ah kooxaha aad ku raadin iyo Liverpool warba soo baxay sheegay in hub qasoon oo Xavi Alonso ay u guuleysan karto in Bayer Leverkusen ay ka tobar uga noqdo ay la soo warinay waxa leeyahay Bayern Munich ayaa runtii haysto hub qarsoodi ah way adeegsanayso inay runtii ay ku soo xirgeliso Xavi Alonso ay ugu dulqaato Liverpool oo ay raadinaysa iyadoo haatan runtii la galayo bilii ugu dambeeyay ee xil ciyaareedka mustaqbalka tobaraha Bayer Leverkusen Xavi Alonso ayaa mid si weyn loo hadalhayo oo kooxoyin fara badan la xirnay xitaa ay ku jirtay Real Madrid iyo waliba kooxo kale waxaana u sabab abalay in kooxdiisu ay ku dhowdahay sanadkan in horyaalka ay qaato oo horyaalkaasi ay ku guuleystay Bundesliga isoo kale ba xaqiiqda ah in la xirinayo Bayer iyo Liverpool ayay raadinayso tobare u beddelay Jurgen Klopp kaas oo bishii la soo dhaafay ku dhawaaqay in kooxda uu ka tagay dhamaadka xil ciyaareedkan dhanka kale Thomas Tuchel ayaa isna shaaciyay inuu isaga tagay Bayern Munich dhamaadka xil ciyaareedkan isaguna Alonso ayaa la xirnaya labada kooxoodba maadaama uu shaqo fiican uu ka qabtay kooxdan Bayer Leverkusen oo wacdar dhigaysa xil ciyaareedkan oo laga yaaban yahayba xaqiiqatan suxufi Jarmal ah oo lagu magacaabo Christian Falk ayaa sheegay in Bayern Munich ay haysto hub qarsoodi ah oo ay ku soo jiidan karto Xavi Alonso waxaana uu qoray ma ahan wax runtii qarsoodi ah in Xavi Alonso uu runtii u yahay musharaxa ugu sareeya ee bedelka runtii Thomas Tuchel iyo waliba Jurgen Klopp labada kooxood ba isku hayaan laakiin Bayer waxay runtii ay sidoo kale ay u aragtaa bartilmaameedkeeda koobaad tobarahani xaqiiqda oo ah in Tuchel loo ogolaaday inuu shaqada
oo sii jooga ilaa iyo xagaaga ayaana muujinaysaa inay isku diyaarinayaan xagaaga in Alonso ay la wareegto kooxdaasi Bayern. Madaxa Bayern Munich ee runtii kalsooni buuxda ay ku qabaan sababtoo ah in ilaa iyo haatan waxay runtii heleen tababare walba oo ay doonayaan, xitaa Pep oo runtii halkan uu soo tababaray. Hubkooda daba qarsoodiga waa madaxoodii hore ee Karl-Heinz Rummenigge runtii sababtoo ah Rummenigge waxay aad isugu dhow yihiin Alonso, waxaa loo arkaa inuu yahay la taliyaha tababaraha reer Spain. Sidaas darteedna Liverpool tartan rasmi ah ay runtii geli doontaa si ay dhankeeda u soo marto Xavi Alonso si uu ugu bedelo Jurgen Klopp. Waxay u badan tahay in Bayern Munich uu Xavi Alonso aadi karo dhankaasi u janjeero, waa sida waryahan uu sheegayo uu leeyahayba madaxaas Bayern ayay runtii xil dhow leeyihiin, waana sababta uu aanaynin in dhankaas u mari karo. Haddaba Manchester City runtii waxay leedahay waxay soo dhaweynaysaa in kooxaha Sacuudiga ay soo dalbadaan xidiga khadka dhexe ee reer Belgium ee Kevin De Bruyne oo 22 jir ah oo da'diisu sii weynaatay. Waxay leeyihiin ba soo dalbada, waxay doonayaan iska fasaxaan wixii ka sii da'diisu waa sii weynaanaysaa. runtiina xil ciyaareedkan in badan ayuu ka maqnaa kooxda dhaawacyada iyo da'da oo soo qabanaysa awgeed. Manchester waxay rabtaa hadda in lacag ay ka samayso. Haddaba Man City waxaa ka go'an oo ay runtii ay go'aamisay in qiimaha Kevin De Bruyne way ku doonayso uu yahay 100 milyan oo gini, wax ka yar ma korobtay ku fasaxdo. Dhawaanahan waxay maqleen kooxaha Yurub in lacago ay daadinayaan kooxaha Carbeedka ee Sacuudiga oo lacag waaliye ku qarash garinaya kooxooda. Manchester waxay doonaysaa in lacagahaas ay ka faa'iideysto 100 milyan bay Kevin De Bruyne oo 22 jir ay ku doonaysaa iyadoo dhankaas Sacuudiga ku maro maadaama ninkan sii weynaanayo si kooxdooda ay ugu jafjafto ay runtii xidigu taayir oo saaxadan ay ugu sii jirto. Manchester De Bruyne bay doonaysaa hadda inay kasii takhalusto. runtii waxayna u muuqatay intii uu ka maqnaa inay ku yara adkaateen khadka dhexe ay sii xaliso Man City, inkastoo haddana ay isku dayin oo ay si fiican u soo ciyaareen oo qab ciyaareedka hoos dhacay ka mid ah laacibkan oo tabeen oo bilowgiiba ka dhaawacmay, inkastoo dhawaan uu soo laabtay. Kevin De Bruyne waa ka takhalusa suuqa soo socdo, suuqaba hadda ay sii dhigto kooxdiisa Man City. Chelsea waxay runtii ay doonaysaa difaaca Barcelona iyo xulka France Jules Kounde oo 26 jir ah kaasi oo xagaaga ay isku day doonto inay ka soo qaato Barca. Daafacan oo daafacyada ugu fiican kooxda Barcelona oo kamid ah center back ay Barca ay ku dagaalamayso sanadkan iyo sanadii horeba oo doon sanadaas ay ku dagaalanto, inkastoo meesha laga saari karin shakiga Barca in lacag ay rabto oo macquul tahay in cidigeeda muhiimka ay suuqa soo aadan bay iibin karto, taasoo ay xaqiiqsan tahay. Chelsea waxay damcaysaa oo ay doonaysaa Kounde in daafaceeda ay ku xaliso. Chelsea laftigeeda lacag waa haysaa suuqa sanadii ugu dambeeyay lacag waaliya ay ku fangareysay. Manchester United, Arsenal iyo Tottenham waxay dhammaantood ay doonayaan khadka dhexe ee kooxda Fenerbahce ee Sebastian Szymanski oo 24 jir u dhashay wadankaasi Poland. ay Man City, Manchester United, Arsenal iyo Tottenham saddexdaasi kooxoodba ay ku dagaalamayaan oo ay ku doonayaan in dhankoodaasi uu ku soo maro. Haddaba kulmo waaweyn ayaguna maanta jira, waa maalin Sabti, waa maalin ciyaareed oo kulmo waaweyn ay daawan doono ay ka mid yihiin kulmo la ciyaari doono horyaalka Premier League iyo waliba horyaalada kale oo runtii kooxaha waaweyn afoodista noqota Manchester United iyo Fulham. Kulanka aynu daawan doonaa maanta horyaalka Premier League. Manchester United waxay kulan ay leedahay kooxdaasi Fulham. United waxay rabtaa kulankan inay badiso. Crystal Palace oo ciyaari doonta Brighton iyo Everton waa kulan kale weyn oo horyaalka Premier League. waxaa kaloo la ciyaari doona Barca iyo Getafe ayaguna ciyaari doona. Barca oo runtii kulankii dhawaan ogeyn ku badisay xaqiiqdii oo daqiiqadii ugu dambeeyay record loo dhigay ay guul ay ku gaadhay, inkastoo Barca sanadkan ay u muuqato inay ka jajaban tahay runtii. waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad horyaalka, waxay muuqataa horyaalkiina ka sabartay inkastoo oo farqi laga hayo uu yahay kaliya 8 dhibcood ay Real Madrid ka hayso, kaalinta labaadna 2 dhibcood laga hayo. haddana Barca sidii sanadadii hore ma aha, 3 kulan ay sanadkan laga badiyay halka 6 jeerna ay barbar ay gashay. 25 kulan ay ciyaartay xaqiiqdii 54 dhibcood ayna leedahay halka 62 Real Madrid ku haysa ay leedahay. soo kaleedana wax ciyaartooyda Man City oo iyada doonaysaa in gool muhiim ah ay gaadho, inkastoo kooxda Manchester City ay la leedahay kulankeedani kooxda Bournemouth
oo loo badinayo in guusha Man City ay meel u taalo. sidoo kale iyaguna kulanka weyn ayaa ah Newcastle United iyo Arsenal. xaqiiqdii waa kulan weyn oo aynu daawan doono maanta. Arsenal oo kan saddexaad ku jirta horyaalka Premier League iyo Newcastle oo sideedaad ku jirta 30 dhibcood leh, halka Arsenal ay leedahay 55 ayaguna food istari doona. waa kulan weyn oo indhaha lagu hayo oo labadii kooxood ay ku dagaalami doonaan, waana kulamada kala mid ah kulamada aynu daawan doona caawa. warkiina ciyaar wanaagsan saaxiibayaal, inta kulmi doona warkiina kale. wassalaamu calaykum.